waxaan marka ugu horeysa uga mahadnaqayaa Adamis inay soo qaban qaabiso inay isu keento dadkan oo ay soo saarto bayaan ka turjumaya aragtida dadka la haybsooco ee Somaliland waxaan rajaynayaa ummadani muddo fara badan ay xaqooda ka doonayeen guud ahaan Soomaali gaar ahaan waddanka Somaliland 27 sano Somaliland jirtayna ceebay inagu tahay wali in dhawaaqo uu ka soo yeedhayo dadkan oo ay wali leeyihiin dulmiga na haystahna laga dul qaado 27 sano waqti yar maaha waa waqti wax badan la qaban karayay laakiin waxaan isleeyahay xogaa hagrashaada jirta hagrashaduna waxay taalaa gondaha kolba cidii talada soo haysay 27 sano madax waxa loo noqdaa kuwa hooseeyad kor u soo qaado kuwa aan nolol haysan oo nolol u sameeyso kuwa codlaawaha ahood codkooda noqoto madax intaas loo noqdaa madax looma noqdo tayga iyo gaariga quruxda badan iyo inaad mushahar qaadato ummadda waxaan ugu baaqayaa kuwa madaxda inay dhageystaan dhawaaqa baxaya inay dhugu yeeshaan bayaankan la soo saaray waxaan ugu baaqayaa inay adeegyo noloshooda kor loogu qaadayo laga sameeyo xaafadaha ay degaan dadka la haybsooca ee ku yaala 6 gobol ee waaweyn ee Somaliland waxaan ku baaqayaa in xukuumaddu deeqaha waxbarasho ay bixiso in mudnaanta koowaad ay siiso dadkan waxaan sidoo kale ku baaqayaa in dhaqaalahooda wax kor u soo qaadaya in laga sameeyo oo la daryeelo xirfadahooda dadkan waxa dad farsamo yaqaana waa intii Somaliland ummadaha adduunka warshadaha ku horumaraan waa kuwii warshadaha ka shaqeyn lahaa waa dadkii ugu mudnaa marka in iyagana laga saaciido in xirfadahooda ay si horumariyaan si marka ay dhaqaale uga sameeyaan oo ay marka barka sare u gaaraan annagu ka qabyaaladiid ahaan ololaha iyagu inta karaankiisa codkiisa kor buu u qaaday markay arrintan timaado insha Allah ta'ala kulanka afraad ee burca ka dhacaya bishan dhamaadkeedana mar kale ayaan ku celin doonaa markii afraad in dadka xuquuqdooda laga siiyo Somaliland iyo guud ahaan inta Soomaali degtada waan ugu hambalyeynaa horena waan ugu hambalyeeyay Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynaha dawladda kilka Soomaalida Ethiopia dadaalkii uu sameeyay talaabooyinka hore u qaaday waxaan rajaynayaa inta kale Soomaalina inay ku dayato waayo mushkiladani dadkan kuma haysato kaliya Somaliland waxay ku haysataa dhammaan inta Soomaali degto Soomaali oo dhan baan dulmaysa marka in dulmiga laga kor qaado oo ay noqdaan dad inala siman oo inala mid ah arrimahana waa in loo kala qaadaa sida uu kala mudan yihiin dulmiga dadkan haysta waa qaar in wax ka qaban karna imaka qaar in wax ka qaban karno waqtiga dhow iyo qaar waqti inagu qaadanaya arrimaha fikirka iyo aaminsanaanta dadku waxay kala aaminsan yihiin waqti bay inagu qaadan doontaa in wax ka bedelo laakiin imaka waxaynu ka qaban karnaa miisaaniyadda qaranka inaynu ku darno xoogaa dhaqaale ah oo aynu ugu talagelayno inaynu kor ugu soo qaadno dadkan mataqaana markii niyadii lagaga ciyaaray ee hoos loo dhigay iyaguna aaminay inay hooseeyaan inaynu kor u soo qaadno waxa kale oo aynu sameyn karnaa waqtiga kale dhow inaynu shuruucdeena ku calaamadino haddii ay awoodi waayeen inay kuraas matalaad ku yeeshaan baarlamaanka golayaasha deegaanka inaynu xeerarkeena iyo shuruucdeennaba wax ka bedelo si marka aynu u hubino hab doorasho ka yara duwan tahay nimaka gallo waayo dimuqraadiyadda nimaka aynu qaadanay waxa laga yaabaa inaanay soo saarin dadkan tira ahaan ma yara laakiin way kala daadsan yihiin marka xeer u fudeedinaya inay ka soo baxaan golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka waayo ma aqbali karayno inaanay matalaad ka helin golayaasha mataqaana xukuumadda ee dawladda waxa kaloo madaxweynaha ugu baaqaya sharaf bay ku tahay madaxweyne saxana adiga haya qurux bay Soomaaliland u noqon doontaa geedku si uu yara foolxun yahay ubaxa ka baxayna mid indhaha qabanaya maaha dadkani xaq bay u leeyihiin si qof kasta xaq ugu leeyahay muuqashada aad u ogolaatay inay wasiir noqdaan agaasimayaal noqdaan commissioners noqdaan waxay niyadda u dhisaysaa ilmaha yar ee daam ku nool wuxuu arki doonaa mid iyaga kamid oo markaasi xilkii ugu sareeyay ummadan haya isaguna markaa wuxuu dadaali doonaa maalin noloshiisa kamid ah inuu halka fadhiisan doono waxaan taasi ku filan tahay saxaada waa waxaynu imaka qabsan karno miisaaniyadda oo lagu daraano waxaynu imaka qabsan karno laakiin arrinta dhawaaqaynu kor u qaadno oo halgan dheer galno oo ummaddu sida waxay ka aaminsantay dadkan madaxooda laga saaro
waqti bay nagu qaadan doontaa waxaan isleeyahay haddii aynu ummadan dhisno xaafadahooda qurxino wax barno iyagoo qurux badan la arko iyagoo isku kalsoon la arko iyagoo shaqaysanaya la arko xirfadahoodu noqdaan kuwa lagu faano waxaan qabaa ummadda kalena markaa inay ku dayan doonto oo oran doonto wallahi iyagoo kala aynu noqono halkay imika leey iyagu inagoo kala noqdaan lama marka uu ilaahay subxaanahu wa ta'ala ummadna dulmiga ka dul qaadayna xoog weyn buu ayuu kaga dul qaadaa marka ilaahay baan u weydiinaynaa inuu ilaahay ka dul qaado iyagana waxaan ilaahay uga barayaa marka ilaahay quwad siiyo ee uu halka hoose ka soo qaado ee uu korka geeyaan oo rabaa Soomaali inay dad kala dulmaa haday jareer yihiin haday kablaawo yihiin haday gabooye yihiin dadka la hayb soo codhay inay marka baarka sare tagayaan rabaa waayo nolosha adduunka saaciska ahay kuwa hooseeya inay mar xagga sare soo marayaan shaqo kuma jiro ilaahay iyaga kama dhigo kuwa sida imaka loo dulmayo ummadda u dulma ummadda Soomaaliland sinaan bay ku qurux badan tahay cid waliba xaqeeda inay heshay ku qurux badan tahay beelaha gabooyena in loo sameeyo tanaasul oo xitaa waxaanay xaq u lahayn la siiyo waxba kama qabo codkeenana korban u qaana intii halka fadhida dawa intii civil society ka shaqeynaysay waa inta wax qorta codkeena maalin quraata ka daalimayno in xaqooda ugu raadino insha Allah ta'ala Soomaaliland way guuleysanaysaa waxaynu ducada guuleysashada u bareena iyadoo siman hadii la isdulmayo oo la kala sareynayo oo aan la isu joojinayn oo la isdhigeysanayn oo qoladan isla tunka weynu una isu muuqdaan anaga markaygi anagu Soomaaliland taa u ducaynayna waxaan u ducaynaynaa Soomaaliland la simayahay Soomaaliland ninka xaqiisa helay oo waliba hadii cid wax looga tagay cid yar wax tabanayso wax looga tagay